farmaajo oo looga yeeray dalka Turkiga Xasan Sheekh Maxamuud oo albaabada mucaaradka markan dib ugu furmaya iyo culeysyo siyaasadeed oo villa Soomaaliya ay wajihi doonto maalmaha soo aadan muxuu yahay nuxurka socdaalka Turkiga uu ku tagi doono farmaajo warbixin la xiriirta ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa muuqaalkan sheer gareeya meel fog gaarsiya si aad uga mid noqotaan saaxiibadeen ugu xiranna ku soo biira oo page-keena flow soo dhaha madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxaa la sheegay warar soo baxaya in si rasmi ah looga yeeray dalka Turkiga halkaas way ku sugan yihiin xubno ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir maalmihii ugu dambeysay ayaa Fahad iyo Shariif waxa ay kulamo uga soconayeen dalka Turkiga waxaana diiradda lagu saarayay kulamadaasi arrimo la xiriira u diyaar garowga mucaaradad ka dhan ah dowladda Xasan Sheekh Maxamuud maadaama muddaxileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la galay 2 sano ee ugu dambeysay Fahad iyo Shariif ayaa isku afgartay in kulankan la ballaariyo oo 3 geesood laga dhigo waxaase looga maarmi waayay ka qaybgalka kulankan Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa maalmaha soo aadan waxa uu ku wajahan yahay dalka Turkiga halkaas oo marka uu gaaro si toos ah loo dardargelin doono kulanka 3 geesoodka Fahad Farmaajo iyo Shariif uga soconaya dalka Turkiga isla markaana waxa uu qorshuhu yahay in la soo saaro ajandayaal la xiriira habka ay u wajihi doonaan mucaaradada dowladda Xasan Sheekh Maxamuud oo u muuqata mid culeys siyaasadeed si weyn aan uga dareemeynin dhinaca mucaaradka marka loo eego Shariif iyo Fahad Yaasiin ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay la fagureen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidii ay qayb uga noqon lahaayeen qorshaha mucaaradada dowladda Xasan Sheekh Maxamuud waxaana ugu dambeyn kulankan uu ku beerayo farmaajo qorshuhu yahay in la soo gabagabeeyo inta aynu ku guda jirno bishan waxaase tallaabada ugu weyn ay noqon doontaa in madal ay ku mideysan yihiin xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka looga dhawaaqo dalka Turkiga kadibna ay u soo guuraan dhinaca iyo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halkan oo ay xarun ka dhigan doonaan waxa ay ku weerari doonaan warbaahinta sida caadada ahaydba dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud culeys siyaasadeed weyn dhinaca mucaaradka muddooyinkii ugu dambeeyay kalama kulmeenin waxaase jirtay dhowr jeer hore oo isku dayo sameeyeen xubnaha mucaaradka ah oo dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay kaga soo horjeesteen tallaabooyin ay qaaday oo ay qayb ka tahay qorshaha dhamaystirka dastuurka qabiyo qoraalka ah oo qodobo laga bedelay xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka aan si weyn ugu qanacsaneen looga adkaaday waxaase dhagaha ka fariistay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hirgelinta soo jeedinta xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka si kastaba ha ahaatee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay siyaasiyiinta falanqeeya arrimaha siyaasaddu qabaan in albaabada mucaaradka ay dib ugu furmi doonaan culeys weyn uu wajihi doono maalmaha soo aadan waxaase villa Soomaaliya la aaminsan yahay in ay ka dharagsan tahay ishana ku hayso waxa ka soconaya dalka Turkiga una diyaar garowday sidii ay kaga hortagi lahayd qorshe kasta oo ay soo abaabulaan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka oo culeys ku noqon lahaa dowladda Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muddaxileedkiisa waxa uu buuxsamay 2 sano iyo bil iyada oo wax ka yar 2 sano ay ka harsan tahay muddaxileedkiisa waxa siyaasiyiinta mucaaradka ay qabaan walaac xooggan oo ku qotoma arrimaha doorashooyinka maxay kula tahay kulanka Turkiga 3 geesoodka Fahad Farmaajo iyo Shariif uga furmaya ma tahay mid culeys weyn uu ku dareemi doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aragtidaada qaybta faalada kaga soo dhiiba nabadgelyo